ururka Tubsan oo ka duulaya sidii bulshada danyarta ku nool deegaankaas wada deeq u gaarsiin lahaa ayaa maanta deeq isugu jirta huy iyo lacag gaarsiiyo shacabka danyarta ku nool qabalaha gabagabo iyo qabalaha ceel baxay kuwaas oo dhan 325 qoys oo danyar ah waxaana deeqdan la soo gaarsiiyay ka mahadnaqay qaar ka mid ah shacabka danyarta ee ku nool labada qabale ee deeqdan la soo gaarsiiyay maanta waan mahad celinaynaa ururka Tubsan maanta waxayna soo gaarsiiyeen dhar iyo lacag aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa baahi aad iyo aad baa loo baahi loo qabaa go'mo kor Allah iyagana ka yeelo si fiican bay noo siiyaan dhalinyarada noo keentay goor walba wixii alla noogu soo noo keena waxaan ugu maxad naqanaynaa inuu Ilaahay waxaan kula iyagana u siyaadiyo caafimaadka iyo waxaan kula hay wax walba kii bixiye iyo ka noo keenayaba hay baayinta lagu qabtay in badan baan u qabnaa hay tana waxaan ka mahad naqanaynaa inuu Ilaahay maanta u siyaadiyo oo waxaan kula wax fiican Ilaahay goor walba noogu soo dhiibo yaan ku mahad naqaynaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sare ururka Tubsan oo sheegay inay si wadaan dadaalka ay ku gaarsiin dadka danyarta sidii ay u taakuleen lahaayeen maanta waxaan qaybinaynay xaqal ciidkii caruurta lagu ciidin lahaa iyo waxoogaa dhara taasoo laga qeybay haddaan joogno qabalaha ceel baxay ee degmada Baabili sidoo kale waxaa iyadan laga qaybinayay santarka gabagabo ee degmada Tuliguleed santarka Masle ee degmada Tuliguleed sadan jirmo ee degmada Tuliguleed lafteeda iyo Daarimi dhammaan waxaas dhan waxa ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan walaalaha iyaga qurba joogta ee ka naxay kana damqaday walaalahooda agoonta iyo danyarta ee maanta rabeen inay ciitiyaan sidoo kale waxaan dhammaan si guud u salaameynaa oo si guud ugu mahad celinaynaa cid kastoo ka soo qayb qaadatay tabarucaadkan loogu talagalay agoomaha iyo dadka danyarta dhankoodana waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha labada deegaan oo goobjoog u ahaa madashan deeqda lagu qaybinayay isla markaana mahad ballaaran soo jeediyay ururka Tubsan iyo dadaalka uu wado halkaan joogno waa qabaleega ceel baxay oo dhalinyarada Tubsan ay ku siiyeen agoontii aabayowada ka geerooday dadka danyarta ah xaqul ciid dhar iyo isugu jira iyo lacag ba isugu jira taasoo ay ka soo uriyeen iyagoo iska bilaabay iyagu jeebkooda ka bilaabay iyo la kaashadeen qurba joogta wixii Ilaahay soo gaarsiiyay markaa ay ka qaybinayaan maanta Daarimi Tuliguleed Dudajirmi dhar caseeye gabagabo iyo hadda ceel bax ay joogaan dadkan aad isaga baahan in loo sii dadaalan ay mudan tahay dadaalka ay wado Tubsanna in looguna mahadnaqo la isna garab taago qurba joogta markaa waxaan fariin ahaan ugu gudbinayaa wixii ay soo direen soo gaarsiiyeen dhalinyarada Tubsan inay sideeda u gaarsiiyeen agoontii Cabdiraxmaan Buux telefishinka One Cable xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab